بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة يقايا على من الوجبتان سودا هذا هل كانوا يوتيوب جنال كأمين معلن وليس ضد نقول سبتها جنال كسبسكرايب ده سور كسر وتاج صاحب جنال كأذنك يا هرمري حتى أنا أذنك أيو إذن سوية أنت اللي من وكم هسنتهين سوبق شدة سوبق قطع جنال كان حدي إلى هذا وحرمنا إن كهذا لنا موضوع كوسابسن وحل له مشغولitaanka dadka fadlan ku mashquul nafsadaada noloshaada wixii kugu qabsoomay waxa kugu dhiman iyo aakhiradaada iyo waxa Allah subhanahu wa ta'ala alla hortagi doonto fadlan ha ku mashquulin qof walaalkaaga noloshiisa hadii uu ka qurux badan yahay hadii ilaahay ku masmadiida uu ka xoolo badan yahay hadii uu ka aqoon badan yahay alxamdulillah u duceey waxaa dhacdaa Allah kuu siyaadiyo anigana intaad haysatid iyo in ka badan ba Allah isiiyo waxyaabaha dhaqanka lagu dooriyay waxaa ka mid ah oo mudooyinkii dambe soo badanayay waxa la dhaho mashquulitaanka dadka ama qofkii oo sharaftiisii meel looga dhacayo hal tusaale maanta soo qaadanayna ma rabo inaan mowduuca ka baxo tusaalahaas wuxuu yahay waxaa laga yaabaa wiil walaalkaaga inaa isbuucan oo dhan aad ku aragtay hal shaati ama hal jaakad ama hal funaanad okay sidaas si lamida gabar walaashaay ah waxaa laga yaabaa in ayadana aad ku aragtay hal xijaab isbuucan ay wadatay muxumo ceeb ma ahan dadka isku dabeecad ma ahan isku dhaqan ma ahan isku faham ma ahan qof ayaa waxay dabeecadiisu tahay in maanta oo dhan maxay tiraahdaa oo labisto sabtiga uu qaato xijaab orange ah isniinta uu qaato kafee axadda uu qaato buni talaadada uu qaato madow arbacada uu qaato guduud jimcada uu qaato bulukmaar khamiista uu qaato ilaaha ku masmadiide xijaab kaleeto yacni blue ah qofa wuxuu jecel yahay todobada beri inuu maalin walba kala qaato qofna wuxuu jecel yahay isbuucan inuu halka mara isticmaalo qof wuxuu jecel yahay laba maalmood kadib inuu iska bedelo maxumo horta dharka maxaa loo qaataa marka ugu horeys in jirkaaga lagu asturo oo cawradaada ku asturato marka labaad in bulshada la soo dhaxmartid dhar nadiif ah maxumo bal ka waran qofkii walaalkaaga oo fasalka jaamacadda kula dhiganay ama madrasada kula dhiganay ama kula shaqeynay xafiiska ama isku goobta aad ka wada shaqeynaysan hadii aad tira fiir heblaay oo soo socota aamin fiir xijaabka shalay wada maantana way wadataa fiir wiilkaas funaantaas cali shalay wuu wada maantana wuu wataa khamiisna ayadu watiya ma iska bedasho maxaa xijaabkaas ilaa isbuuc hore ku arkeenay maxaa carwada dharka miya qofka carwo dhar lagu iibinayo miya qofka bini aadanka ah waxa laga yaabaa qofka inuusan haysan waxaa laga yaabaa inuu shidadaas iyo kala bedbedelkaas iyo boorso kala fakaas ama armaajo dhar kala socsoocas uusan ka bixi karinba soo maaha marka adiga maxaa ku tusiyay dadka bini aadanka ah dharkooda noocyada ay wataan maxaa ku tusiyay adiga waaga hadaa aad jeceshahay 5 days 5 color ina qaad is up to you adiga ku taalaataas iska qaado adiga ku qusaysa anaga waxba naga maqusayaan laakiin waxyaabaha soo bataa waxaa ka mid salaan aroos aadaysa oo laga wacaya cabaayada ku tagaysaa okay isbuuci gudihiisi hadana aroos kala laga wacaa cabaayad kale ma soo iibina maxaa dhacay maxaa soo iibina tiya ma haystaabe tiya hadana ku tagaysaa arooskii hiblaayo cabaayadaas ku joogtay arooskii hiblna kaas ku joogta kana ku joogtaa bal adi cabaayada wado inay qaxwi tahay inay blumaar tahay inay kafee tahay say u xifdisay maxaa inaha camera ma ku xiran oo wax duubayaan arooska ka yimaadaan ya dadaaba arooska waxay u yimaadaan in ay dadka kale xisaabiyaan dharkooda make up ku marsan noociisa kabaha iyo dharka ma islahan lagu leeyahay hiblaay waxay wataa kabo buudo cadaan ah iyo waxay wataa xijaab guduud ah la isugu talagalin maxaa diiday kaba cadaan xijaab madow baa xirna maxaa diiday isha wax diiday malahan laakiin anaga dabeecad waxaa ka dhiganay wallahi xaqiiqada idinka laga hadlayo dhalinyaro dabeecad waxaa ka dhiganay in aan dadka ku mashquulno aan ku fogaano wax ka sheegitaankooda ha ku fogaanin qof walaalkaayo adoo kaleeta dib isku baan isbuucan maxaa ku qabsamay bishaan maxaa soo kordhisay ma shaqaysatay wax miyaa baratay cilmi baaris miyaa samaysay
كل تليفونك waa isticmaalaysa waa ku sixrantaa gacanta ku sidataane googlaha miyaa gashay wax miyaa baartay twitterka akhbaaraha la soo dhigay miyaad akhrisay bal ka waran qisooyinka miyaad facebooka ka akhrisaa masaba waxaa ku mashquushaa qofkan dariskaaga ama walaalkaaga ama walaashaaga ee kula shaqeysa wax kula baratay ama wax kula barta labiskiisa markaasaa la isku jiibinaya markaasaa waxaa arkaysaa xayn dhan ama koox dhan ama group dhan oo dad oo qof meel fadhiyo qof ka sheekeynaya ee qof la jafaya hal qof aan oranaynin war heedan naga daaya maxaa labiskiisa afaarisan ka qosay oo hadaaba tiraahdo dhalinyaro sheekeysanaysa maxaa ka rabtiin wuxuu rabaa xirta hadii aad tiraahdo dambiilaaba tahayba reebaadiyaaba tahayba qof aan jirinaaba tahayba qof aan ilbax ahayna tahay qof oo waxaa tahay aaba update ahayn oo waxa jiraba aalas yaa qaya billahi calayki aan dib isugu laabano maanta qarniga la joogo dal kasto dhalinyaradiisa waxa ay ku mashquulsantaa horumarka dalkooda waxbarashadooda nafsadooda adduunka waxbaa la qoraa buugaag baa la aqriyaa waxbaa la baaraa cilmi baaris baa la sameeyaa axaadiista la baaraa qisooyinkii asxaabaadka la baaraa noloshii hore oo asxaabta ayaa la baaraa ma ahan qof inaan ku mashquulshin xijaabkaygan aniga anaa iskale suuqaasaan kasoo iibsaday maalintaa soo iibsanaya wuy cajabiye iima aadan gadin ilama aadan gadin soo jas waxaa u baahanahay weegiyo dhan inaan laba xijaab bis qaato haddii ilaah yiraahdo ma fahantay marka dhalinyaro yaanan shaqo ka dhiganin inaan ku mashquulno qof asaageena ah haddee tahay waxbarashadiisa natiijadiisa imtixaanka uu keenay haddee tahay labiskiisa haddee tahay qaabka uu u soconayo yaa qayo taas ma ahan wax qurux badan ma ahan halka maanta ee gabdhihii qaarkood ilaahay khayr ha siiya gabdhaha dhamooda xuma sharaf ay leeyihiin eeba ka dhigteen dabeecad in ay qaawnaasho ama dhar aan labiska ku wanaagsaneen ama asturkaba ku wanaagsaneen intay soo xirtaan inay yacni isugu faanfaanaan taasina waa wax laga xumaado waxaa arkaysaa wax yar oo marada saas qoorta looga soo wareejista gabar ku soconaysa oo ku qanacsan oo ku faraxsan oo ku qoslaysa oo social media la taagan yaa qayb billahi calayki walaalayaal aan dib isugu laabano tan maanta waan ka tegaynaa waxaan tegaynaa beri mid aan kasoo noqonaynin mid aanan xijaabkii ama taraaxadii aa wadatay aadan dib aadan uga soo saxaynin meel aadan kasoo baxaynin meel aysan suurtagal ahayn inaa mar dambe kusoo laabato waa adduunyada markii aad ka tagto soo noqosho ma lahan laakiin maanta taraaxada intaad iska tuurto xijaab waad qaadan kartaa oo waad ka soo laaban kartaa labiska qaldan waad ka soo laaban kartaa wax ka sheegitaanka dadka asaagaaga ah ee aad wax ka sheegaysid ee aad ku mashquulsan tahay waad ka soo laaban kartaa dadka kaleeta wax kula barta amaba kula shaqeeya mashquulkaa ku mashquulsan tahay waa ka soo laaban kartaa run ahaantii waxa ayaan dare maanta dhalinyaradeenu halka iska caawin lahaayeen inay iyaga iska mashquulaan in ayaga niyadda iska jibiyaan in waxyaabaha xunxun ee qaawnaashaha ah ama dhaqan darada social media taala la dhaho keep going qofka hore u sii socon waxa wanaagsan inaan iska tirno aan naga daa qofkan update ma aha waxba lama socdo taasina waa wax laga xumaado marka dhalinyaradeeda quruxda badan leh qiimaha badan leh waa u bixi maanta yacni waa mustaqbalkii bari waxa idinka waaninayaa heerka maanta aad ku socotaan ma ahan heer wanaagsan adduun iyo aakhira labadaba ma ahan mid u wanaagsan wixii fikir ah oo adinkana ku aadan bal commentiga iigu reeba haddii fikirkayga uu idila noqdana mid qaldan waa idinka raali gelinayaa asxaabteyda qiimaha iyo gaayaha leh mawduucyada aad jeclaan lahaydeen inaan kasoo hadlo waa ii muhiim inaa iisoo qortaan waa walaashiina aamin macalin oo idin leh kulanti dambo oo xiiso leh asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.